السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواada arday waxa aynu horay ugu soo jirnay chapterkeeni 9aad ee ahaa The Middle East Conflicts. Haddaba horay waxa aynu u soo qaadanay Iran-Iraq War. Asharakan oo ah keena toddobaad waxa aynu ku qaadan doonaa Iraq-Kuwait War. dagaalkan oo timeline-kiisu yahay 1990 up to 1991. haddaba arday waxaa la idinka doonayaa kow marka uu casharakan dhamaado waxaan ka filayaa arday walba oo daawada casharakan in uu sheegi karo oo sharaxi karo waxyaabihii Iraq ku dhiirigeliyay in ay weerarto oo ku duulaanto wadanka Kuwait. sidoo kale waxaan idinka rajaynayaa hadii Ilaahay idmo in aad garan kartaan falcelintii uu caalamku ka sameeyay duulaankii Kuwait lagu qaaday. ardayda sidoo kale waxaan ka rajaynayaa oo aan ardayda idinka rajaynayaa in aad sharaxdaan oo aad faahfaahisaan waxyaabihii ka dhashay dagaalka. arday kusoo dhawaada casharka haddaba marka aan fiirino Saddam Hussein waxa uu qaatay inuu joojiyo dagaalkii uu Iran la lahaa, laakiin taasi ma soo afjarin in uu joojiyo gardaraysiga iyo faduusha oo waxa ay keentay bishii Agoosto 1990 in uu duulaan ku qaado wadanka Kuwait oo ah wadan yar oo daris la ah. haddaba arday waxa isweydiin mudan maxay tahay arrimaha ku keenay in uu qaado duulaankan. erayga motive macnaheedu waxa weeye driving force oo ah wax qofka wada. It's just like motivation. marka Saddam maxaa siiyay diiladaas inuu dagaalka qaado. marka haddii aynu fiirino wadanka Kuwait waa wadan qani ah, halka dagaalkii uu ku qaaday Iran ay ku keentay dhaqaale burbur, economic problem. haddaba si uu uga soo kabto dhaqaale burburka waxa uu istusay in ay lagama maarmaan tahay in uu weeraro Kuwait oo uu halkaa ku sameeyo dhaqaale oo kaga soo kabto dhaqaale burburkii. waxyaabaha kale oo ku keenay Saddam Hussein in uu duulaan ku qaado wadanka Kuwait waxa qayb ka ah inuu aaminsan yahay wadankani in uu taariikh ahaan uu ka mid ahaa Iraq. haddaba wuxuu leeyahay wadankani maba noqon karo wadan ee waa gobol anaga naga mid ahaa, waxaan u baahanahay inaan dib u soo ceshano. waxyaabaha kale oo Saddam ku dhiirigeliyay duulaanka uu ku qaaday wadanka Kuwait waxa qayb ka ah in uu lahaa ciidamo adag oo uu islahaa caalamka intiisa kale kuma soo bareeri karaan oo waxa ay ka cabsoonayaan in ciidankaaga. haddaba arrimahaas oo isbiirsaday waxa ay ku keeneen Saddam Hussein oo ah hogaamiyaha wadanka Iraq in uu ku duulo wadanka Kuwait. waxyaabaha kale oo Saddam ku dhiirigeliyay in uu weerar kan qaado waxa kamid ahaa wadanka qaaradda Yurub iyo wadanka Mareykanka. waxa uu u arkay kuwa taageeraya maadaama ay siiyeen hub iyo saanad marka uu dagaalka kula jiray wadanka Iran, balse taasi waxa ay ku ahayd waxa aynu dhahno ee ah miscalculation oo ah xisaabaad khaldan in isku dhufsaday.
waayo qaaradda Yurub iyo wadanka Mareykanka oo aynu dhahno labadooda isku dhahnada Western si lamida sida ay u arkaan Iran uma arkaan Kuwait oo waxa ay door bidayaan Kuwait haddaba mar labaad maadaama uu soo galay dagaalkii Iran Saddam Hussein waxa ku dhacday wax la dhaho inuu isku dhursado xisaab qaldan miscalculation sidaas darteed hogaamiyihii Mareykanka ee ahaa President Bush waxa uu qaaday in uu hogaanka u qabto cadaadiska la saarayo wadanka Iraq inay iskaga baxaan wadanka Kuwait United Nations oo ah qaramada midoobay iyaduna waxay cunaqabatayn rasmiya ku soo saartay wadanka Iraq oo waxaan ognahay cunaqabataynta waxa la dhaho ah trade sanction oo ah in uu wadanka ku keenayo dhaqaale burbur cunaqabataynta waa curyaaminta dhaqaalaha waxa ay wadanka ku keenaysaa dhaqaale daro taas oo loo cuskaday in laga joojiyo inuu dhoofiyo saliiduna oilkuna waxa ay u tahay wadanka Iraq the main source of income waa main source of income oo ah isha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha ee uu wadanku ku tiirsanaa haddaba haddii uu wadanku dhaqaale waayo waxa ay meesha ka saaraysaa inuu ku sii jiri karo wadida uu sii socodsiin karo dagaal Saddam Hussein waxa lagu amray in uu ciidamadiisa kala baxo wadanka Kuwait markuu taariikhdu ahayd bishii January 15keedii 1991 kaas oo ay dhaheen UN-ku waxaanu qaadaynaa wax allaale iyo wax ah ciidankaaga meesha kaga saarayna haddaba labada hogaamiye ee kala haystay wadanka USA iyo wadanka Britain oo kala ahaa Bush iyo Margaret Thatcher waxa ay hoggaansadeen in Saddam ay tahay inay burburayso hoggaankiisa waayo sababaha ay u arkeen inay Saddam lagama maarmaan tahay in la burburiyo waxa ay ahayd Saddam waxa uu gacanta ku dhigay meel ay tahay meesha ugu saliida badan saliidaasna waxa u baahan oo aad ugu baahan wadamada warshadaha leh ee wastiga waxyaabaha kale oo faa'iidada u ahaa wadanka Britain iyo USA waxa kamid ahaa waxa aad u carooday oo u xanaaqay oo la saftay garabkooda wadanka Saudi Arabia Syria iyo Masar kuwaas oo ka yaabana arrinka saddexaad oo uu sameyn karo Saddam Hussein haddaba waxa ay taageereen fikirkii ahaa in ciidamo nabad ilaalin ah ay soo dirsato qaramada midoobay maadaama ay walaac ka qabeen natiijada saddexaad ee uu keeni karo Saddam Hussein badan 30 wadan ayaa waxay ka qayb qaateen in ay sameeyaan inay ciidamada qaramada midoobay ay qayb ka noqdaan sidoo kalena in ay kaash ku saacidaan wadamada tusaale Mareykanka Britain France Italy Egypt Syria Saudi Arabia intaasba waxa ay keeneen ciidankooda halka wadanka Germany iyo Japan ay ku deeqeen qoonda lacageed sidaas darteed waxa
kama dhammaystir uga dhigay 15 January in uu faaruqiyaan dhammaan ciidamada Iraaqiyiinta ah ee ku soo duulay wadanka Kuwait. haddaba waxaa laba face laga dhigay sidii hawsha ay u gali lahaayeen United Nations oo ah United Nations Peacekeeper-ka. markii ugu horeysay waxaa la weeraray oo weerar lagu sameeyay Baghdad oo ah caasimadda wadanka Ciraaq, halkaas oo uu ku dhinteen dad badan. sidoo kalena waxaa la weeraray oo iyaguna dhintay ciidamadeedii. waxyaabaha kale oo Ciraaq ku dhacay burburkaasi uu u geystay iyo duulaankaasi waxa kamid ahaa in uu wadanku waayo oo uu lumiyo wadooyin iyo buundooyinba. sidoo kale second phase ahaan oo ah wajiga labaad waxyaabaha kale oo ay sameeyeen ciidamada ishuwanka ah waxa kamid ahaa in bishii Febraayo within 4 days lagaga saaray wadanka Ciraaq Kuwait, taas oo ahayd Kuwait in lagu xoreeyo. Saddam Husseinna wuu aqbalay in laga adkaaday. haddaba labadaas arrimood oo isbiirsaday waxa ay ahaayeen falcelin ay ka falceliyeen caalamku qabsashadii uu Ciraaq qabsaday wadanka Kuwait oo ah meelsha enerjiga aadka u leh muhiimad gaarana u leh wadamada reer galbeedka. haddaba ardayda waxaan leenahay waa maxay natiijooyinka ka dhashay arrinkan? Saddamna sidee uu uga badbaaday arrinka oo ah weerarkii iyo duulaankii lagu qaaday ee laga weeraray caasimadiisa ee dadkuna ku dhinteen buundooyinka iyo wadooyinkuna ku burbureen? sidee uu u noqotay in uu ka soo kabto? sidoo kalena in laga soo baaciyo wadanka Kuwait oo Kuwait la xoreeyo. arrimahaas oo dhan sidee uu uga badbaaday? aan fiirino arrimaha kan dagaalkani waxa uu lahaa consequences badan oo ah natiijooyin badan. Ciraaq marna kama filayn in dhibaatada tan oo kale lagu keeni karo oo ah inay adduunku sidaan u soo weeraray. maadaama sidaas adduunku marka u soo weeraray oo lagu sameeyay jab kan weyn, waxa la filayay Saddam Hussein in uu talada banayn doono oo uu overthrow lagu sameeynayo wadanka Ciraaq. marka waxyaabaha uu la yaabka ku leeyahay waxa kamid ah in ay joogaan dad Kurdis ah iyo Shiiciyiin. haddaba Shiiciyiinta iyo Kurdiyiinta waxa ay sameeyeen isku soo baxaas ay sameeyeen waxa uu ka dhigayaa wadanka Ciraaq in uu si kala jajabayo oo uu u kala jajabayo in muslim xukunto oo sunnigiya, in shiicadii ay xukunto, inay haysato kurdiskii. balse ciidamadii ishuwanka ahaa waxa ay rajaynayeen in uusan Saddam uusan meesha ka bixin oo sideedaba siyaasaddu waxa weeye waa wax oo cajiib ah. waxba taageeraysa masana diidaysa. marka Saddam kaliya waxyaabaha ku diidanayaan wuxuu ahaa Kuwait ka saarida, laakiin Saddam inuu sii joogo waxay u ahayd arrimo kale iyo dana kale bay kala haayeen. marka Saddam waxyaabaha uga tagan waxa inaysan ka burburin ciidan badan, taangiyaal badan, si uu xaaladda ku soo ifbaxaysa ee kaga soo ifbaxaysa kacdoonka Kurdiska iyo Shiicada uu uga badbaadi karo. Russia, Syria iyo Turkiya saddexda wadan ayaduna waxay leeyihiin takigu dad Kurdiyiin ah oo minority ah. haddaba haddii ay Kurdiyiintu qabsadaan wadanka Ciraaq oo ay maamulka iyo talada gacanta ku hayaan, waa arrin ayaga u daran oo halkaas laga soo duulaya oo Kurdiyiintu waxay u helayaan meel ay ku tarmaan. marka ayaga ruuxadooduna waxay arkayaan inay lagama maarmaan tahay in uu sii joogo Saddam. Shiicada oo ayaguna ku guuleystay inay xukumaan Southern Ciraaq
waxay keenaysaa inay siyaado Maraykanku marka waxyaabaha cabsida ka qabay oo waxa kamid ahaa in Saddam Hussein uu sii wadi karo weerarka uu ku hayo dadka Shiiciyiinta iyo Kurdiyiinta sidaas darteed Maraykanka Britain iyo qaramada midoobay waxa isla garteen in loo baahan yahay waxa la dhaho in la ilaaliyo duulitaanka ay duulayaan wadanka Iraq diyaaradihiisa oo laga dhigo wadankii wax la dhaho no fly zones oo ah meel diyaaradaha ka caagan okay dagaalka waxyaabaha kale uu soo saaray oo ka soo ifbaxay waxa kamid ahaa in la arko saameynta iyo gacan-gacaynta ay leeyihiin wadamada Western iyo Great Powers intaas arday waxa inuu ku eg casharkeennii 7 oo aynu ka qaadanaynay chapterkeena 9 ee Middle East Conflict imikada halkan waxa inuu ku qoran exercise oo ah layligii haddaba arday su'aasha koowaad waxay ku leedahay discuss the reasons that motivate Iran to invade Kuwait oo ah sharax sababaha keentay wadanka Iraq in uu duulaan ku qaado wadanka Kuwait sidoo kale su'aasha labaad waxay ku leedahay analyze the reactions of the world toward the invasion of Kuwait waxaad sharaxdaa oo faahfaahisaa sida adduunku uga falceliyay qabsashadii ay Kuwait qabsatay Iraq qabsatay wadanka Kuwait su'aasha saddexaad waxa ay ku leedahay sharax waxyaabihii ka dhashay dagaalka ardayay waad mahadsantihiin waana ku mahadsantihiin daawashadiina waxaana idin rajaynayaa inaad si fiican u fahanteen haddaba casharakani wuxuu inoo noqon doonaa kan toddobaad waxa uu noo noqday gunaanadka cutubkeenii khilaafaadka bariga dhexe waxaana idin rajaynayaa inaad si fiican u fahanteen 7 cashar guul iyo baraare ayaan idin rajaynayaa waana mahadsantihiin